maha waxaan maartay howlgal ka wadnay tuulada warciisa iyo wardagax muddo 3 maalmood howlgalkaas oo lagu nadiifiyay haraadiga ka helay nimankii qawaariijta ahaa oo ummadda dhibaatada u geysay wadankan alxamdulillah waxaan noo suurta gashay in dad badan oo kamid ah dadkii maartay la shaqeeyay nimankii nabadiidka ahaa ama ha u qaadana ku hanaqdana kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdana kuwa hore u dhibaateeyo dad badan oo deegaankan kamid ahay ciidamadii macaawisleeyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyay guryahoodana in la guba ka shaqeeyay iyo kuwa kale oo maartay ka tirsan kuwaas ayaan maartay qaybo badan oo kamid ah dadkaas ayaa la soo qabtay waana la xiray oo maartay waxay u gudbiyay degmada Raagaceel ayaa lagu xiray sida ay u kala daran yihiin haduu Ilaahay ila dambiyadooda lagu kala qaadi doona waxaana loo gudbi doona maartay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeeyayso nimanka nabadiidka haday xaatee telefoon kaliya kula shaqeyso ma la dhaafi doono waana lagu raad joogaa waana la soo qabado meel ay xiran shabaab ay soo waraana ku hortaagan hadaan naga cabsayn manin telefoon durkaas oo waana karaama badan hadaad amarkiisa qaadatay kayna diido kayna socay aniga meesha taagan waana ballan intilaab laga qaado qof waliba ganacsigeeda ha furato si xurriyada ha u shaqeysato shabaab meesha ma joogo mana soo socdo mana soo naqahay qof kasta si xurriyada inuu shaqeysatay sharaf ku noolaataan rabnaa aad iyo aad dadka deegaankan joogo waxaan u sheegaynaa dadkii hadda ka hor wixii ka horeeyay dadka u tiftifay ama dadka u rufiyaanay ama dadka maarta wararka beenta u sheegay dad ee ku dhibaatay jira shabaab maalintan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaan sharcigaana la horgeey doonaa qofkii ka baxay yiraahdo way soo dhiibay waana wixii shalay aan dambiga aan galan waxaan rabaa in la iga cafiyo qofkii yiraahdana marka dawladda ayada maartay dadkeeda jecel ayada maartay baabka naxariista ayada u fiiriyayso laakiin inaan anaga soo qabanay waqti ku bixin baabka naxariista loo fiiriyo ma sharcigu mara haduu Ilaahay